wafdi uu hogaaminayay safiirka Qatar u fadhiya Soomaaliya Xasan bin Xamsa ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Tani Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana garoonka diyaaradaha Jowhar ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ku-xigeenkiisa iyo qaar ka tirsan mas'uuliyiinta labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle soo dhaweyn kadib Xasan bin Xamsa safiirka dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya iyo wafdigiisa iyo madaxda Hirshabelle waxa ay socdaal ku tageen warshadii hore Isnaay ee Sonkorta beerihii Isnaay oo xilligii warshada Sonkorta shaqayn jirtay lagu tacbi jiray dalagga qasabka iyo sidoo kale halka loo yaqaan Xintooyda oo ah meel markii biyo yari ay timaado biyaha webiga Shabeelle keydiya deetana ay isticmaalaan beeraleyda gobolka Shabeelle dhexe inta kadib safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya iyo madaxda Hirshabelle waxa ay qaateen kulan saacado socday markii uu soo idlaaday kulanka ayaa waxa saxaafadda la hadlay afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Daawud Xaaji Ciro isla markaana sharaxaad ka bixiyay ujeedada imaanshaha Jowhar ee safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya waxa maanta inoo yimid wafdi balaaran oo ka socday dowladda walaalaha nahay ee Qatar wafdigaas waxa hogaaminayay safiirka dowladda Qatar oo fadhiya Soomaaliya ambassador Xasan bin Xamsa sidoo kale safiirka socdaalkiisa waxa ku weelinayay madaxa hay'adda Qatar Jarati Cabdinuur Xaaji Cali iyo sidoo kale madaxa Bishcas ee Qatar mudane Axmed Aadan socdaalkooda ay ku soo gaareen caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle si qurux badan baa eelbarka lagu soo galbiyay wafdiga waxaana loo soo galbiyay aqalka madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabelle waxayna kulan la qaateen inta ay madaxtooyada ku sugnaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweyne ku-xigeenka guddoonka baarlamaanka labada gole ee dowladda run ahaantiina waxa laga wada hadlay mashaariicda Hirshabelle ay u hayaan iyo kuwa mataqaana la fuliyay waxyaabaha laga wada hadlay waxa kamid ah in la fuli doono insha Allah ta'ala sida ay noo ballan qaadeen mashaariic horumarineed iyo kuwa bini'aadanimo oo runtii aan rajeynayno hadduu alla ka raali noqdo in si dhaqso ah loo bilaabi doono mashaariicdaas ay runtii ay ballan qaadeen sidoo kale inta kulanku uu socday waxa laga wada hadlay dhismaha wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar oo runtii dowladda Qatarna maaragtay ay mataqaana dhaqaale ay ku bixinayso kambaniye kalena runtii ay ku guuleysteen waxay noo ballan qaadeen insha Allah ta'ala in wiiga soo socda insha Allah dhismaheedu uu bilaabo doono wadada Muqdisho iyo Jowhar hadduu Ilaahay ka raali noqdo inta ay madaxtooyada ay joogeen waxyaabo badan baa runtii laga wada hadlay oo ay ka mid yihiin arrimaha beeraha inay wax badan ka qaban doonaan sidoo kale waxa laga wada hadlay inay sameyn doonaan ceel biyoodi aad u fara badan oo riigi ah oo ay ka sameyn doonaan deegaanada iyo tuulooyinka deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle waxyaabaha laga wada hadlay sidoo kale waxa kamid ah dhismooyinka aeroboortyada waxay ballan qaadeen in dhismooyin casri ah oo qurux badan ay ka hirgelin doonaan deegaanada Hirshabelle gaar ahaan caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ee Jowhar in aeroboortkeedana maaragtay la hagaajin doono sidoo kale aeroboortka magaalada beledweynena insha Allah dhismo qurux badan oo casri ah halkaasna laga hirgelin doono hadduu alla ka raali noqdo sidoo kale kulanka inta uu socday waxyaabaha laga hadlay waxa kamid ah arrimaha kalluumaysiga kale ay ka hadleen in maaragtay kalluumaysatada loo sameyn doono adeegyo u sahlaya howlahooda shaqo inay hore u sii wataan sidoo kale beeraleyda iyaguna waxay ballan qaadeen in maaragtay ay maalgelin doonaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo oo inta ay kulanka uu socday waxa sidoo kale kulankeena wehelinayay booqasho aan ku sameynay warshada Sonkorta Isnaay oo runtii Soomaali fara badan bari hore laga qoodin jiray waxaan sidoo kale geynay beerihii ay lahayd warshada Isnaay oo aad u ballaaran oo runtii dalagyo kala duwan imika ay ku yaaleen waxaan sidoo kale wafdiga aan geynay wabiga ayaan ku soo wareejinay oo Xintooyda iyo maaragtay wabiga meelaha uu ka jilicsan yahay meelo badan ayay soo arkeen iyagoo inoo ballan qaaday in wabigana caratuur fara badan ay ku sameyn doonaan hadduu Ilaahay ka raali noqdo waxa sidoo kale kulankeena intaas sii dheeraa maadaama dowlad goboleedyada qaarkood ay leeyihiin dekedo waxna ku soo dejistaan waxna ay mataqaana ka dhoofiyaan waxay noo sameyn doonaan ama noo hagaajin doonaan deked casri ah oo runtii Hirshabelle runtii wax badan ka tari doonto hadduu Ilaahay ka raali noqdo waxay noo ballan qaadeen inay maaragtay ay maalgashi ku sameyn doonaan dekeda cadalay deked ka sameyn doonaan sida ay noo ballan qaadeen waliba waqtiga ugu dhow hadduu Ilaahay ka raali noqdo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka iyo xubnaha labada gole ee dowladda runtii aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen wafdiga Ali Taliya Cabdi Som News TV Jowhar